daawadayaal qisada maanta aan idiin hayo oo dhacday 1988 ilmo yar oo 4 jir ahaa markaa ayaa dagaalkii 88 Burco iyo Hargeysa lagu duqeynayay. maalmihii ugu xuma hooyadii oo la cararaysa oo gacanta haysa ayaa rasaas ku dhacday. kabacdi ciidankii duqeynayay ee dowladda Soomaaliya nin kamid ah oo askariya ayaa gacanta qabtay ilmihii yaraa oo ka dul ooyay meedkii. kabacdi fasax buu ku doontay, wuu qaaday Muqdisho geeyay, wuu dhaafiyay meel ay markuu geeyay hooyadii uu geeyay. waxa uu sheegay inuu gabadh Hargeysa ku qabay, kabacdi gabadha ay ka dhimatay, ilmaha yarna uga dhimatay. bal haddaba aniga ninka laftigiisii ilmihii yaraa ee maalintaa la qaaday oo maanta 40 jir ayaan wada kulannay. haddaba qisadu halkaasay ka bilaabmaysaa. dhinaca commentiga aragtidiina kaga qayb qaata. waxa maalin maalmaha ka mid ah soo garaacay nin iga soo garaacay lambar Muqdisho. wuxuu igu yiri niyo hoos u jees media maaha haawan ku wada. waxaan doonayaa niyo inaan qiso kuu soo gudbiyo sidii aan kugu soo gudbin lahaana imka wili garan maayo. saan ku maxaa dhacay? wuxuu waxa jecelahay inaan ku imaado wiigad bixi waayay. kabacdi muddo markii ka soo wareegtay ayaa lambar Somaliland laga soo garaacay. wuxuu yiri niyo nin reer xamar ahaayo kula hadlayay waqti dhaweyd ayaan ahay. waxaad ii sheegtay in aad qisada iga gudbinayso, laakiin waxaan doonayaa inaan isu nimaadno. waqtiga magaalada Burco joogay kabacdi wuxuu yiri xagaan kugu imaadaa goob tilmaameeda ayaan ku ballanay. markaan hotelkii isugu nimi ayaan kulannay. kabacdi su'aashii baan u dedejiyay. waxaan ku yiri niyo qisadaadii wada maxay tahay? wuxuu yiri niyo qisadaasi waa qiso muddo 36 sano aniga iga dhex guuxaysay, xataa alaana igu jirta. waxaan jiraa 40 sannadood. 40 sannadood dadkaygii ma arag, meel iga xigana ma garanayo. waxaanan ahay nin reer Somaliland oo Somaliland u dhashay. sidii aan Somaliland uga tegayna waa qisadan ay ku duugan tahay. waqtigii Somaliland Hargeysa Burco duqeynta ugu xumayd maalin dagaalkani soconayay ayaa sida ugu dambeyntii la sheegay hooyaday oo ila urdisay. anigu ma garanayo buliina hooyaday tahay, laakiin waxaan u filayna hooyaday tahay un qofka layga soo bixiyay. ayadoo la qaxayo la yaacayo oo hooyaday gacanta hayso ayaa rasaasta ku dhacday hooyaday. markaa isagu ma caddayn karo inay hooyadii tahay, sababta ninkii soo qaaday baa uga sheekayn doona markuu dhimanayo. kabacdi iyadoo hooyaday gacanta hayso rasaasta markii ku dhacday anoo ka dul ooyaya ayaa ninkaa askariga ee weliba kuwii Hargeysa duqeynaya ayaa gacanta soo qabtay. kabacdi xeradii militarigu geeyay siduu ii sheegay wuu i qaaday. meelaan sii marnay iyo meel kale toonaan ma garanayo, balse isagu fasaxii waa loo ogolaaday. waxaanu madaxdii markaa isaga xukumaysay u gudbiyay. gabadhii baa igaga dhimatay dagaalkii oo gabadh bay ahayd Isaaqa. ilmaha yar bay iiga tagtay. ilmihii yaraa baan hooyaday u geysanaya. fasax buu ku helay, wuu ku tegey. waa siduu uga sheekayn doono. wuu qaaday Muqdisho, wuu dhaafiyay marka meel ilaahay u geeyay. wuxuu ii geeyay islaan hooyadii habla ay walaal yihiin adigu familigiisii. sidii ayuu sheegay. wuxuu yiri Hargeysa gabadh baan ku qabay, dagaalkan bay ku dhimantay oo xabad ku dhacay. ilmaha yar bay iga tagtay. kabacdi waxaan siray ilmihii yaraa qaado gurigii nigeen. hooyadii sidaasay igu qaabishay oo igu korsatay. waan weynaaday. anigu ninka markaa ilaa iyo waqtiga aan weynaaday inaan reerkan ay dhaleen waan garanaya. reerkuna waxay aaminsan yihiin sida ninkaasi u sheegay. shaki badan habeenkii walba marka aan seexdo waxa kaliya to aan dadka iyaga ka xasuustaa inaan aanu filayo inaan walaalnahay markaa oo Yaasiin loola jiro magaca waa xasuusanahay. hadiya jeeraale waan ka daba ooyi jiray. waxaan kaloo garanayaa inaan gacanta ay qaban jirtay. inta waxaan soo ahay ma garanayo, magaciidina ma garanayo, wejigeedina wuu igu sawiray.
sidoo kale wuxuu yidhi hooyaday wejigeedu wuu igu sawiranyay magaceediina ma garanayo sababtay ciyaalku markay talaaleegayeen hooyuunbay u yaqaaneen aabbahayna maba garanaya buuri ilaa iyo wakhtigii aan gaadhayay 33 sannado habeenkii aan seexdaba waxaa lay hor keenaa gurigaygii inuu ahaa Hargeysa ama Baro anugu ma kala garanaya buuri reerkanaan la joogaana inaanu idhalin wanuga laakiin ninkan aabbahay isugu ka sheegay inuu idhalay iyo kalama kala garanayo marar badan baan weydiiyey aabow yaasiin meeyey baan kuli yaasiin baa loola jiray buuri ninka aan magaciisa xasuusanay waxaan xitaa isku ahayn garan maayo laakiin inaan walaal ahayn baan filaya yaasiin meeyey baan ku dhahaa aabe deetan wuxuu yaagu dhintay buuri waxaan ku dhahaa hooyo meeday deetan wuxuu hooyadaa way dhimatay qolamay ahayd waxaa ma weydiiyey xaggaa lagamaba yaqaano qolyahayo waxaa aad laysu weydiiyeyba muqdisho haddaad xaggaa dhaafto sidan sidii ugu noolaa oo shaki badan igu jiray ayaa wuxuu yidhi ninkii aniga aabbahay ahaa wakhtiga ayaa sakaraaday carruur kale malay ninkaasi dumar wuu guursaday laakiin carruur kale malay kabacdi muqdishoaanu soo qaadnay aduu dhakhaatiir badan baan marinay dhakhtarka Madiine anigoo ku haya ayaa wuxuu yidhi waxaa dhacday inuu markii u dambaysay ee u arkay inaanay naftani baaqanayn ayaa anigoo haya ila inankiisii baan carruur kaleba malahay ayuu ii sheekeeyey wuxuu igu yidhi waryaada anigu horta naftan waa socod baan malaynaya laakiin runtan kuu sheegaya anigu horta kumaan dhalin laakiin waan ku soo korsada adigana kolley shaki uu kugu jiro su'aalo badan oo aad i weydiisay waa xasuusanaya anigu waxaan ahaa buu yidhi ciidankii dowladdii Soomaaliya la odhan jiray waxaana joogay Hargeysa oo guutada walba magacaada ayaan ahaa kabacdi dagaal baa ka dhacay oo duqaymo ba'an baa ka dhacay anagoo dagaalkii ku jirna waxaan kugu soo baxay adigoo gabadh meyda waan u filaya inay hooyadaa tahay ka agooyayo taagan dadkina yaacayaanu yaaceen kabacdi gacantan ku soo qabtay waan ku soo qaaday dagaal kabacdi xeradii markii la yimi ciidanka waxaan doonay inaan fasax qaato oo aniga laftigaygu ilmo yar uma danaynin markaase siduu sheegay inaan fasax helaan doonayo dagaalkan ka dhex baxo kabacdi adigu ilmihii yaraama xerada ku dhexaystay buu yidhi adigoo ilmo yara uu ooyaya ayaan xerada kugu dhexeeyay habeenkii iyo maalintii dambe fasax baa lay ogolaa markaa dowladda Soomaaliya awood bay ku lahayd umayhan waqtigii laga saaray gaadiidkeedu si toos u soconaya baabuurtii madaxda qaar ka mid ah baa lay saaray gaalkacyo ayaa kaga degay gaalkacyaan baabuur caadi ka soo raacay muqdishaan imi reerkaygii baan kuu geeyey reerkaygii waxaan u sheegay in gabadh reer Somaliland aan guursaday markaa dee Somaliland iyo Soomaaliyun baa la isku odhan jiray jamhuuriyadda Soomaaliya inaan Hargeysa gabadh ku guursaday gabadhii ilmahaasay dhashay baan ku uri kabacdi dagaalkii ayay ku dhimatay ilmihii yaraa baan la soo cararay oo la soo qaxay dee yahay hooyo baan ku uri hooyaday sidii bay kugu soo korsatay reerkayaguna inankayduun bay kuu yaqaanaa laakiin anigu meel aad ka soo jeedo waan kuu tilmaamo ma garanayo waxaanse kuu sheegay inaan maalintaasuu ku badbaadiyey oo gabadhaa meydkaa kaa soo agxiyey wuxuu yidhi shakigaygii ayaa run noqday 30 sano kadib kabacdi marba su'aal baan weydiiyaa ma garanaysaa xaafad markaa ay ahayd meeshu xuulaan Hargeysa ma kala aqoonbe waxaan ahaa ciidankii ku cusbaaye markaa la geeyey waqtiyadaa jabhadu u baxeen mana kala aqoon dagaalkoo soconaya ayuun baan kugu soo baxay buu yidhi gabadha kaaga ooyaya waa ku soo qaad meel alle meelaan kuu kaxeeyana ma garanayo wuxuu yidhi anigu xitaa magacii markaa lai yaqaanay ama lai bixiyey ma garanayo buu yidhi laakiin isagu magacuu iila baxay oo uu ii sheegay inuu isagu iila baxay ayaan anigu isu aqaana buu yidhi kabacdi wuxuu yidhi muddo 6 casho kabacdi ah ayuu dhinta odaygii wuxuu yidhi xumaana kama sheeganaya ama xagga xaafadda laftigeeda si fiican ba laysoo koriyey oo inaan reerka ka mid a baan ahaayo dee inaan kooyey
laakiin halkaasaa qisadu ka bilaabmaysaa markii odaygii aanu aasnay ama duugnaydii sida loo yaqaano waan iska noqday reerkii baan ku noqdo waxaan ogaaday hablahan aan ku dhex jiro iyo islaamtan iyo dadkan inaanan murxim u ahayn reerkuna ma laha inama badan nin keliya ninkaa walaalahaayo ninkaasina inamayntu dhalay ayuu dhintay inamadiina hooyadood baa haysta buuyi oo muqdishay deganaa reerkii aniga nin oo ah buuyi iyo wixii dee habluu dhaleen wuxuu yidhi muddo sannada markaan joogay reerkiina aanan waxba u sheegin sababtaa meelaan rabtaba garan maayo waxay caddaatay markii hore waxa shakiigaga jiray inuu ninkani aabbahay yahay ayaanu aqaanay laakiin hooyaday baa shakiigaga jiray meel ay jirto iyo cid ay ahayd iyo meelay kasu jeedo toonaan aqoon wixii xasuusiyey horena war haysta kabacdi wuxuu yidhi markii ay intaa ahayd ayaa laygu yidhi islaantii baa doonayada xajka geyso islaantan waan ogahay inaanan murxim u ahayn sababtu tahay haddii imka xagga naaskoo kale ado shaqado dii wax allaaliya wixii xaafadda jooga markaa murxim baad u tahay deetana anugu ilaanaa isoge muqdishaa la geeyey waxaa loo dalbay xajkii muddadii aan la diyaargaroobayey ayaan anigu horta baxsaday bidan waan tegey waan tahriibay tahriibtii waxaan ka soo hadlay buyi libiya markaan ka soo hadlay adigu wax layga bixi ilaahay way fududeeyey waan tegey haddeer jarman buu joogaa ninkaas haddaba annagu halkaasaan isku qabsan doonaa sheekadii markuu dhammaan iiga sheekeeyey wuxuu guhi anugu halkaasaan joogaa imka jarmal reerkii ma doonaya inaan u sheego inaan reerkaba ka mid ahayn umaba ogabayagu waan biiliyaa buu yidhi lacag baan u diraa markaan doono islaantii way nooshahay soo korsatay buuli oo iyadan biiliyaa ma doonayo inay ogaadaan inaan reerkan ahayn kabacdii aniguna waxaan dalbaday in qisadaa uu dadka isagu uga sheekeeyo oo soo fadhiisto jes midiya wiiga dida wuxuu yidhi niyahow anugu wejigayga kuma soo gelayo uma doonayo in reerkii dhammaa ee igu xisaabtamayay inankooda ii yaqaanin ilaa cid kalaba garan maaye inay ogaadaan arrintan sidoo kale tilmaan cad oo aan wax ku baadi doono ama magacaygoo saddexan ha noqdo ama ka hooyaday ha noqdo ama wax astaanahoo aan wax ku baadi doonana ma hayo buyi reerkayga waxaan ka garanaya magaca yaasiin buu yidhi yaasiinna waxaan garanayaa inaanu wada ciyaari jirno welibaan ka daba ooyi jir inuu kiiga weynaa yahay inuu qof kale ahaa ma garanayo buyi meeshii aanu deganay xitaa say u ekeed ma garanayo waxyaabo maskaxdayda kusoo dhacdhaco yaryaroo dee maxaan sheegaayey guriga dhexdiisa ay wey jiraan buu yidhi laakiin waxaas waxba kama garanaya buu yidhi hooyadayna magaceedii ma garanaya laakiin wejigeeda si saxa baan u garanaya buyi laakiin magaceedii ma garanaya buyi waayo haddaba qisadii sidaynu u gudbinaaba buu qisada dee qofka ay heshay haddii uu joogo oo weliba baafin tahay inuu isagu wejigiisa isticmaalo sida dee weliba ay ku habboon tahay waxa weeye qofka markay baafin arrintii tahay inuu wejigiisii keeno oo isagu ka hadlo sidii inaanan iyadaba laftigeedii ay dhaa'ilkii hargeysa lagala qaxay oo maalin dhawada halkan idinku soo gudbiyey ciddii daawatay baa daawatae waana ku soo celi doonaa inantaasi ciddeedii bay doonaysay iyadu laakiin tilmaan intaa ka badan bay haysay oo waxa weeye hooyadeed baa yaraan iyadaba kaga dhimantay laakiin iyada iyadeed hooyo iyo ehelkoodii saxda ahaa ee dhinaca hooyada ayaa soo korsaday laakiin waxay garanaysaa iyadu magacii loo sheegay ee aabbaheed marka iyadu wejigeedii iyo fidiyow ka mida baan halkan keenay ninkaas wuxuu iga diiday inuu isagu dadka hor yimaado kabacdi anna waxaan ku uri niyahow qisada dee dadka ku dhacda baanaan u gudbinaa laakiin qofka baafin gelaya xataa haddaanu tilmaanhayn waa inuu wejigiisa la yimaadaa dee niyahow ma doonayay buu igu yidhi inaan dadkaygii kale arko oo aan nin baadiya noqdo oo dadkii dabadeetana halkaa shakigu ka raaco kabacdi waxaan ku uri waaya sidaad doonaysa inaan u gudbino wuxuu gu yidhi haba gudbinaya horta iminka joojiya anaa toddobaadka dambe kugu soo noqonaya bal sidaa aan markaa ku tashado aan yeelaya ninkii horta sidii baa iigu wardambaysay waxaana laga yaabaa kolley inuu daawadayaashan ka mid yahay oo inta badan barnaamijyada laba socdo
dib u noqoyaa muqdisho joogayaa jarmal joogayaa hargeysa joogaya ma garanayo. ninkaasi codsigiisii wuxuu kaga maarmay in dadkii kale soo korsaday ay arkaan oo ogaadaan arrintan. dabadeetana arrintii markii ay la qoraal bay halkaa ku taallaaye aan maalin walba sugay oo muddo dheer iminka ka soo wareegtay, waxay noqotay inaan ninkii sidii dee uu igu sheekeeyey intaan u soo geliyo, haddiiba uu isagii soo hadlana wixii uu yidhaaha ku kordhinaan ku kordhiyo. sababtahay dhibaato ka weyni ma jirto adigoo 40 sano jiray oo qoyskiinnii aanad maalin maalmaha ka midana intaad aragtay aanad ku farxin, hooyada iyo aabaha iyo ehelkaagii. sidoo kale dad aanad isku ehel ahayn igu soo korsadeen oo aydan ehelba wadaagin, laakiin meelaad ka qabataba aanad garanayn ka war. dadka qaarna hal habeen hadday ka dhaxaan hooyadoodii aabahood dhibaato weyn bay la kulmaan, balse laakiin murugo ka weyni ma jirto arrin habeenkii kasta hortaada imanaysa sidii aad u maarayn lahaydna aanad garanayn. waxaad rajadaada ugu dambaysa noqonaysaa inaad sidaa ku dhimato adigoo aan aqoon hooyadaa iyo aabbaha iyo walaaladaa toona, adigoo xitaa haddaad hesho shaki kaaga jirayo waad ka shakisantahay solestol run tahay mise maaha. dunidase laakiin maanta wax DNA leeyahabaa jirta oo markiiba qofkii waa la baari karaa. maalintaa dee halkii taagneed way ka casrisanta. markaa warbaahintan jes media qisooyinka noocan ah iyo kuwo kaleba haddii aad haysaan waad noo soo gudbin kartaan. lambarka descriptionka youtube-ka ku jirana waa nagala soo xidhiiri kartaan. sidoo kale baafimaha ugu badnaan waa waxyaabaha maanta dadka haddii technology la helay maanta in dadkii laysu baadi doono way fiican tahay. sababta berigii hore baafimaha ugu badan ee laysku helay waxaa gudbin jirtay bisha cas oo BBC Soomaali qayb ka mida kasoo geli jirtay barnaamij. baafintaasi waxay dhacday kalalunkaasi wuxuu dhacay waqtigii ay dhaaliye ka dambeysay dagaaladii. meel kasta waa lagu kala lumay, laakiin dadkii ugu badnaa qofkii BBC dhegeysan jiray wuu garanaya. maalintii walba waxaa la baafin jiray dad cusub oo tiradoodu badan tahay. ugu yaraanna barnaamijka 2 qof baa daadihin jiray, Aamina Muuse Weheliye iyo Cawki ama Cabdisalaam Hiririyo noolba. adigu barnaamijka 2 qof baa daadihin jiray garab kasta. laakiin dadka markaad eegto qiyaasto dadka iswaayey ee ilaa waqtigaa laga bilaaba ah, waxaan u filayaa dadka Soomaaliba afkeeda ku hadla inay yihiin dad kala lumay, waayo filab walba dad cusub baa la baafinaya. warwaan islaamaya tan iyo kulanti dambe barnaamijka xigeenteen ku kulanmayno waxaan leenahay